markale subax wanaagsan waa Arbaco ay taariikhdu ku aastaysan tahay 20ka bisha 2 ee February 2019 warka oo dhan subaxan waxa la diyaaraa wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cali وماسنتها عبدالغني عبد الله إبراهيم subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacada kulmiye oo dhameystiran warar soo baxay ayaa sheegaya inuu socdo qabanqaabada kulan ay qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulanka labada mas'uul ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa kulankaasina waxa ka shaqeynaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed madaxa xukuumadda Itoobiya ayaa la sheegayaa inuu casuumaad u fidiyay madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi kulanka labada mas'uul ayaa ah mid aan horey loo sii shaacinin balse saacadihii dambe soo ifbaxay gelinka dambe ee maanta ayaana lagu wadaa in madaxda ay halkaasi ay gaaraan iyadoona Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya lagu wado sidoo kale inuu kulamo gooni ah la qaato labada mas'uul dhanka kale madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo looga arinsanayo howlgalka AMISOM sida faafahinta warkani ay ku eegayso Xafsa Khaliif Cumar madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo looga arinsanayo ka bixitaanka ciidanka Burundi ee howlgalka AMISOM ku jira ka hor dhamaadka bishan midowga Afrika ayaa si tartiib ah waxa uu u yareynayaa ciidanka ka jooga Soomaaliya waxaanu qorshuhu yahay in dhamaadka bishan dalka ay ka baxaan 1,000 askari oo ka socda dawladda Burundi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay Bujumbura ayaa la kulmay dhigiisa Burundi Pierre Nkurunziza waxayna muujiyeen walaaca ay ka qabaan in saameyn aan wanaagsanayn ay ka dhalato ciidanka AMISOM ee ka baxaya Shabeellaha Dhexe waxaan ku baaqaynaa kulan degdeg ah in ay yeeshaan wadamada ciidankoodu ka mid yahay AMISOM si dib loogu eego go'aanka ayuu yiri Pierre Nkurunziza madaxweynaha dalka Burundi wargeyska The Sun Daily oo soo xiiganaya ila wareed uusan magaciisa daabicin ayaa sheegay in ciidanka Burundi ay Soomaaliya ka baxayaan inta u dhaxaysa 22 ilaa 26 bishan February sidoo kale war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay isugu yeereen kulan degdeg ah dawladda Burundi ayaa si cad u diidan in ciidankeeda Soomaaliya laga saaro waxayna ku doodaysaa in dalalka AMISOM ka midka ay u sinaadaan ciidanka la saarayo qaadka ay ganacsatada Kenya geyn jireen magaalada Kismaayo ayaa la sheegay inuu sii socon doono xilli ganacsatada magaalooyinka Beedhabo iyo Kalkacyo ay sheegeen in go'aanka ganacsatada Muqdisho ay taageersan yihiin Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya kadib afayeenka ganacsatada qaadka keena magaalada Muqdisho shalay shir jiraayad ku qabtay isla markaana sheegay in ay joojiyeen qaadkii kaga imaan jiray dalka Kenya ayaa waxa sidaasi ku raacay qaar ka mid ah ganacsatada qaadka keena magaalooyinka Gaalkacyo Baydhabo waxayna sheegeen in guud ahaanba ay kaga dayanayaan kuwa Muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay idaacada kulmiye ayaa waxay sheegeen in ay joojiyeen qaadkii kaga imaan jiray dalka Kenya sidoo kale waxay sheegeen in Kenya ay qaadka ku afduubanayso Soomaaliya taasina aysan yeeli doonin waxaan joogaa magaalada Baydhabo waxaan ka mid ahay qaadwalaha magaalada Baydhabo jooga magaras qaadka walba Nairobi laga keeni jiray ma waa laga keeni jiray qaadka meeshan ka keensan jirna wallahi Baydhabo xiisada Soomaaliya wada hayso macnaha nin kastaba dawladdiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa waxa qaba uu garab taagay annaga Kenya waxa dawladana raalli aan ka ahayn oo ay kaga maarmi karto dawladana la qabnaa waxa sharciga Soomaaliya ummadiisa meel kasta ay joogto Soomaaliya raalli ka wadana Kenya annaga inay noogu hanjabto qaad baan joojinaa dalkaanaga iyo dadkaanaga u galaafata diyaar uma liin qaadkii la ka joojiyo xuduudda Kenya la ka xiro waliba meel ay Kenya ka muuqato ana arag waa rabnaa ma garad waxa la yiraahdaa Faaduma Ismaan Kalgacyan jooga qaadwalaan ahay waxaan rabaa qaadka dhibaatooyinka uu lagu hayo inaan ka faaleeyo wala la qaadku dhibaato badan buu lagu hayaa waxba yaanu dareemin lacag yarta naga soo galaysa naf iyo maal waan ka dhacanay Soomaaliya Kenya waa afduuban tahay annaka maxay jireen malaayiin daily maantii waxa naga baxday malaayiin dadku ma xisaabtamaan annagu marka dhibaataan ku qabnaa anigu waa ka ganacsadaa waan ilmaan ka bisha diyaar waxaan u ahay in nagala joojiyo nagala daayo because ilaahay baa israaqa bixiya annaga Kenya kuma nool ayaan ugu nool
dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in ganacsatada keenta qaadka magaalada Kismaayo ay sii wadi doonaan isla markaana ay joojinayaan qaadka kaga yimaada Kenya. Kismaayo ayaa qaadka Kenya lagu geeyaa doomo waxaana laga soo raraa xeebta Lamu ee Kenya halkaasi oo doomo Kenyaati ay leeyihiin lagaga soo qaada ayna keenaan xeebta xadka ku taala halkaasi oo doomo Soomaali leedahay kaga soo qaadaan kuna gaarsiiyaan magaalada Kismaayo. maanta galka dambe ayaa la ogaan doonaa waxa ka dhaqan gala go'aanka qaadka Kenya ay ka qaateen ganacsatada badi. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay caqabad ka haysato horgeynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed golihiisa wasiirada. Yunis Duraan Cali ayaa faahfaahinaya. wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ahna caasimada ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ay caqabad ka haysato horgeynta golaha wasiirada dhawaan uu magacaabay baarlamaanka maamulkaas. ila wareediya ayaa keen u sheegay in caqabada soo wajahday madaxweynaha maamulka ay tahay xubno kamid ah wasiiradiisa oo xilka iska casilay iyo kuwa kale oo wali aan ku qanacsanayn jagada loo dhiibay. shirriisada jooga ayaa siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka beelaha deegaanka koonfur galbeed ayaa maalmihii la soo dhaafay xukuumad la lahaayeen madaxweynaha maamulkaasi. 2 Febraayo ayay ahayd markii madaxweyne Laftigaran uu magacaabay 10 kamid ah wasiiradiisa. dhinaca kale 13 Febraayo ayuu madaxweynaha maamulka wuxuu soo dhameystiray xubnaha golihiisa wasiirada balse xubno ku dhow madaxtooyada ayaa intaa ku daray inay jiraan xubno wasiirada inay wali dhiman yihiin magacaabistooda. abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa la sheegayaa in dad halkaasi ku sugnaa ay ka barakacayn. Cumar Maxamed Soomani ayaa ka waramaya. iyadoo abaaro dadka iyo duunyada saameyn xoogan ku yeeshay ay ka jiraan deegaano ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, haddana 24 saac ee la soo dhaafay waxa isa soo tarayay qulqulka dadka naftooda kala soo baxsanaya deegaanada abaartu ay ka jirto xilligan. dadkan ayaa ka soo barakacaya deegaanadaasi iyagoo doonaya in ay nolol ka raadiyaan magaalooyinka ku yaala maamulka Puntland. magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay ka mid tahay meelaha qoysaska ka soo hayaamay deegaanada abaartu ka jirto ay xilligan gaareen, waxaana tallaabadan ay ka dambeysay kadib markii dadkani ay sheegeen inay waayeen biyihii iyo baadkii ay haysteen, taana ay ku qasabtay inay deegaanadii ay ku noolaayeen ay ka soo barakacaan. xilligaana ay bilaabeen inay nolosha ka raadiyaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. qoysaska soo barakacay oo u badan haween iyo caruur ayaa ka dalbaday madaxda maamulka Puntland iyo Somaliland ee iyagu ku loolamaya gacan ku haynta magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool inay u istaagaan sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkan oo ka mid ah kuwa ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Sool. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay isa soo tarayeen cabashooyinka ka imaanaya dadka ku nool deegaanada baadiyaha ah ee ku yaala gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasi oo dalbanaya in lala gaaro gargaar bini'aadanimo oo degdega. waa markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah qoysaska reer guuraaga ah ee ku nool deegaanada abaarta laga soo sheegayo ay xilligan ka soo hayaamaan halkii ay ku noolaayeen, waxaana tani ay qayb ka tahay dhibaatooyinka abaarta laga soo sheegayo in ay ka jiraan deegaano ka tirsan maamulka Puntland. mahadsanid Cumar Maxamed Soomani. warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa dhegaysanaysaan. akhbaaraadkii dibadda ayaa inoo soo socdo balse markan ugu yaraan 4 qof ayaa dhaawacmay, mid ka mid ahna xaalkiisu waa halis kadib markii buuro baraf ah ay ku soo dumeen aag loo dalxiis tago ee dalka Switzerland. saraakiisha ayaa sheegaya in 240 kooxaha badbaadada ah ay goobta ka wadaan baaritaan ku aadan in ay jiraan dad uu baraf ku aasan yahay. booliska ayaa sheegay in aysan meesha ka saarneen suurtagalnimada ah in ay weli dad meesha ku jiraan, waxaana soo baxaya warar sheegaya 12 ruux ay weli barafka hoostiisa ay ku jiraan. goobjoogayaal ayaa sheegaya in dad kale ay weli aasan yihiin, baaritaankuna waa uu socdaa iyadoo la adeegsanayo qalab ku habboon, ayuu yidhi taliyaha booliska Christian Varoni. waxaa soo dumay buur baraf ka samaysan oo dhirirkeedu yahay 400 oo mitir. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa ku degdegaysa in macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan tiknoolajiyadda quwadda korontada ee nuclear-ka la wadaagto Sacuudi Carabiya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen aqalka wakiilada. guddigan aqalka wakiilada uu xisbiga dimuqraadiga hogaaminayo ayaa bilaabay baaritaan ku aadan walaaca laga qabo in aqalka caad uu boqortooyada Sacuudiga ka dhiso warshad quwadda korontada ka dhalisa nuclear-ka. dadka sirtan dusiyey ayaa guddiga u sheegay in arrintaasi ay waxyeelayn karto bariga dhexe ayna siyaadin karto nuclear-ka samaysashadiisa.
shirkado lala xiriiriyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in ay gadaal ka riixayaan wareejinta macluumaadkaas. guud ahaan warkii subax idaacadda kulmiye ayaad ka dhageysanaysaa.